habeenka Israa wal Mi'raaj oo habeenkii la dheeliyay nabigeena suubana Maxamed naxariisi nabadgelyo korkiisa ahaatee ayaa maanta si weyn lagu xusay goob kasta ay ummadda muslimiinta ay ku sugayeen munaasabad si weyn loo soo dhisay ayaa ka dhacday gudaha magaalada Hargeysa munaasabadani oo ahayd mid lagu xusayay al-Israa wal Mi'raaj oo habeenkii la dheeliyay Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam goobtani ahayd mid si weyn loo xusay habeenkaasi ayaa waxa ka soo qayb galay mas'uuliyiin culimo dhalinyaro waxaana iyaguna sidoo kale xuska ka qayb ah dhalinyarada yar oo iyagu halkaasi qasiidooyin iyo nashiidooyin lagu weyninayo xuskaasi ka qayb qaatay geesta kale waxa iyaguna xuskaasi al-Israa wal Mi'raaj ee habeennimadii Nabiyullaahi Muhammad la dheeliyay ka qayb ah culimo diinta ku dhaqan magaalada Hargeysa iyagoona halkaasi kaga hadleen muhiimadda uu habeenkani leeyahay iyo sidoo kale xuska weynaynta nabigeena suubana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam الحمد لله الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى الحمد لله الذي رفع بالذكر أقدار الذاكرين ورفع بالتقوى مقام المتقين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين بالبر معروف وبالإحسان موصوف وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا وهادينا وقدوتنا سيدي وسيد الكل محمد بن عبد الله الذي علم الجاهل وأمن الخائف وطمأن القلق وأقام المعوج ونشر نور التوحيد كما تنشر الشمس ضياءها في رابعة النهار فاللهم اجزه خير ما جازيت نبيا عن أمته وخير ما جازيت رسولا عن دعوته اللهم يا ربنا وكما آمنا به ولم نرى فأدخلنا مدخلا اللهم أدخلنا مدخلا واسقنا من حوضه الشريف شربة لا نظمأ بعدها أبدا يا رب العالمين هذا الكيم يسوغانتي ولا نبيي كريش بيقواه ذلك لكن سلبك المدن يقوم بأنه كقيم قاطو محبوب بيسوق عيسى يجعل النبي عليه الصلاة والسلام صديقي أنا دوتيو سيد كانوا جعلينه وكن ساعدين يا سلام عليكم أيها سرسرتيو سفلك سبحان الله بيو سوي لك تاجيو سنعاب ليسو إبليس تكوشيري صديقي الله كينيو سيدك يا نجعل صديقي الله كينيو سيدك وكركاري وباقي سمانتو وكن ساعدينا يا سلام عليكم سيد الله محمد سيد الله محمد عليه الصلاة والسلام على آله وصحبه وسلم عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام الله محمد وأدو بهاي كان مبسوط يحيي لأن كان أمور خلق الموضوع أو إذيبه مكترين الدنيا بمنفعه وإحمد وسلوه بلي سنة هرتون آدم ولله مولين مصيب آدم وإباد أكتم ولا كل هيدي مو قالوا وشي سنوب إيبا كمليني مركي أدقى أو كان ومرتبط كويلي ملقى آدم وحتيكسن كاري كوبا مع موسي إن الموضن كل الله تهضر وحنا كمرمين وحقي مرخاتي هذه مضش عن كيما Yaasiin Sheekh ayaa la gudoomiye ku xigeenka golaha wakiilada Soomaaliland oo isna ka qayb ah xuska habeenka al-Israa wal Mi'raaj ee lagu xusayay magaalada Hargeysa maanta ay halkaasi ka hadlay isla marhaantana khudbad dheer oo taabanaysa muhiimadda xuskani ka jeediyay ilaahay ka siiyo
waxaanu laygu yeedhay inaan hambalyeeyo dhammaan mujtamaca islaamka ee dunida daafadeeda ku kala nool oo maanta ku xusaya ilaa xalayto maalintii weyneyd ee la maamuusay nabigeennii moxamed sala allahu calayhi wasalam sidaynu ka warqabno al-israa wal-micraaj nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam ayaa lagu maamuusay caamkii loolan jiray caamulxusni iyaa ilaahay ugu hiiliyey inuu xabiibkiisa moxameda sala allahu calayhi wasalam uu ku marti qaado meel aan makhluuqu weli tegin sidii haddeerta sheeku sheegayey laga qaadan maayo meel ilaahay joogay ama uu fadhiyey oo uu ugu tegayey nebiga laga qaadan maayo liannu maxaa yeelay ilaahay subxaanahu wa tacaala khaalifun bilmakhluuqi bilitlaaqi yacni gebi ahaanba ilaahay makhluuqiisa mid khilaafsan wey cilmuhu laysa ka cilmina wa kalaamuhu laysa ka kalaamina wa iraadatuhu laysa ka iraadina wa istiwaa'uhu laysa ka istiwaa'ina waxaana kuwa wareerin oona ku daalin cilmiga ilaahay cilmigeenoo kale maaha sida ilaahay makhluuqiisa uga duwan yahay iyo cilmiga makhluuqu yaqaaniyo cilmiga ilaahayna u kala duwan yahay al-israa wal-micraaj waa habeenkii la dheeliyey nabigeena moxamed salawaatullaahi calayhi wasalam waxaana goob kasta oo ummadda muslimiinta ay ku sugan yihiin si weyn looga xusay maalinimadani maanta iyo sidoo kale habeenkii xalay ahaa iyadoona weyneynta iyo xuska nabigeeni moxamed salawaatullaahi calayhi wasalam ay nagu waajib tahay haddaba guud ahaanba daafaha caalamka ay ku nooshay ummadda muslimiinta ayaa si weyn looga xusay habeenkaasi al-israa wal-micraaj. Soomaali Cabdi Axmed Karinle, Kalson TV, Hargeysa.